dadka Somaliland maaragtay siyaasiyiinta ama maaragtay dadka tiktokerka ama fanaaniinta caanka ah ee Somaliland nooga imaanaya markaan anaga reer Muqdisho amba koonfurta Soomaaliya aan nahay macnaha waa dad anaga background no ah marka aan sawir ka qaadno oo fiidiyoyo aan ka duubno ayagoo noo heesaayo calanka Soomaaliya wato midnimada ku dhawaaqayo si anaga iskaga keendaa dhacayaan background ahaan waxa ay background amba taariikhda u galooso in ay yihiin dad macnaha maaragtay taabacsan taageersan midnimada Soomaaliya waa laga yaabaa dadka Hargeysa joogo ama maaragtay siyaasiyiinta Hargeysa joogto in ay aaminsan yihiin in ay yihiin dadkan dad ayaga ka mid ah oo aysan shaqo u heenin oo shaqo tagay laakiin dadkaasi way soo shaqo tageen adigana markaasi waxa xaq u leedahay inaad ku shaqeysato kani waa wasiirkii hore ee warfaafinta Soomaaliya Abuukar Cusmaan Dube aan isla daawano waxaan rajaynaynaa sanadkan inay noo qabsoonto munaasabado qaran oo aad u qurux badan maalmaha xorriyadu waa maalmaha ugu waaweyn sanadka aynu ku faano 26 Juun iyo 1 Luulyo waa maalmihii aynu xorownay waa maalmihii calanka Soomaaliyeed la taagay kani waa fanaankii qaranka Soomaaliyeed Khalid Kaamil silixu wixii la soo maray siriqdii loo dhigay sixirkii madooba sambay ku dhaaftaa Soomaaliya noolaato balaas daawna asagana muxuu leeyahay Khalid Kaamil anu Soomaaliya 5 sano joog كود ذلولي ولد بلدك جري عبد الغني هذا ما قرأت كود ذلولي أما كود شلاي يجا إسكاله هو نكوي احترام جري سياسة وديم كانوا نكوي احترام يمر كلنا نكوي احترام جري وأنا ولد بلدك جري لكن لحلا تنك تشون ويسمى لأن إسكاله هاي مركح حمر مغمم مقدشون مركح لجو قمانية سو أرنس صور إيمج سياسة بحنا absolute absolute أنا كم قيب جري جري وحاجة كنا دبلدك جري لحلا تنك تشون صوتها مش اللي هذا هالك حق ولا اللي جد دبلدك جري tani waa walaasheen qaaliga ah ee Soomaaliyeed ee Hargeysa nooga timid ee midnimada inoo sido waa daacabilan balaas la daawano isbedelka wadankaygu gaaray miyaa la leeyahay indhaha ka qabsada ummadda Soomaaliyeed waxay aaminsantahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed wuxuu doortay wadaan sahlaneyn wuxuu doortay in Soomaaliya laga saaro marxalad ku dhisneyd ku meel gaar iyo jahwareer siyaasadeed loona gudbo dawlad leh hanaan cad iyo sharci muuqda muqdishada maanta ma aha muqdishadii shalay tir waa muqdishada xilliga doonta guriga ka baxaysa xilliga doontana soo galis ganacsiga iyo kobcay maalgashiyada soo badanay wax soo saarkii dalkeena kor u kacay soo badanay hay'adihii dawladda ka duwanaaday sidii hore maanta moobilkayga dil laga qaado 24 saac gudahood ayaa lagu soo helaya iska daa halkay hore ay ahayd in qof intuu dil la waayay gaarigayga wato 24 cisho haduu meel ku xariisnaado maalinta 25 jabintiga koobaad baa lagu weydiinaya gaarigan xaguu jiray isbedelka wadankeena soo kordhay waxa kamid ah labada xafiis dalka u sareeya maanta waa daacabilan waxa ay kamid tahay xisbiga GSB taageero waana tiktoker caan ah waxa ay jeceshahay midnimada Soomaaliyeed dhiigeeda hadii maqaarkeeda la saro dhiiga ka soo daadanayo waa dhiig blue iyo xidigta cad dhaxda ay ugu taalo waa wadani Soomaaliyeed mar walba dadka maaragtay inooga imaanayo waqooyiga Soomaaliya ee Somaliland waxay naga mudan yihiin inaan soo dhaweeno waxay naga mudan yihiin inaan sharafno waxay naga mudan yihiin mar waliba in aan markaasi madaxa aan saarano adiga waa laga yaabaa marka aad markaasi muuqaalada aan idin soo bandhigay aad daawatay in aad isdhaxday macnaha maaragtay dadkan isbedel badana laakiin midaa jirto adduunka siyaasad ka jirtaa jirto macnaha dadka hadii ay iswataan ay midaysan yihiin macnaha waxba laga bedeli karo laakiin dadka hadii aysan midaysneen oo dad baahan ay ku dhex jiraan waxa ay markaasi aad macnaha ugu fududahay dadka kale ee markaasi ka soo horjeedo in ay isticmaalaan ama ay use gareeyaan marka dadka Somaliland maaragtay siyaasiyiinta ah ama maaragtay dadka tiktokerka ama fanaaniinta caanka ah ee Somaliland nooga imaanaya markaan anaga reer Muqdisho amba koonfurta Soomaaliya aan nahay macnaha waa dad anaga background no ah
marka aan sawiro ka qaadno oo fiidiyoyo aan ka duubno ayagoo noo heesaayo calanka Soomaaliya wato midnimada ku dhawaaqayo si ay annaga iskaga keendhacayaan background ahaan waxa ayaga background ama taariikhda u galooso ay yihiin dad macnaha maaragtay taabacsan taageersan midnimada Soomaaliya waa laga yaabaa dadka Hargeysa joogo ama maaragtay siyaasiyiinta Hargeysa joogto inay aaminsan yihiin inay yihiin dadkan dad ayaga ka mid ah oo aysan shaqo u haynin oo shaqo tagay laakiin dadkaasi way soo shaqo tageen adigana markaasi waxa xaq u leedahay inaad ku shaqaysato marka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waa baraarujinaya waxa la madaxweyne waa ku saxan tahay qof walba oo maaragtay Soomaaliland kaaga yimaado si sharaf iyo karaamo leh ugu soo dhaweey magaalada Muqdisho maaragtay mushaar loo qoro maaragtay u sameey macnaha maaragtay dad soo dhaweeyo kii xildhibaan rabo magaalada Muqdisho la walba ku doorna xildhibaanadooda hal lagu doorto kuwa annagana taageersan leh aan doorano hadee laabtaan macna ma sameynayso mid kale heleena bari intaan kulmi doono muuqaal la mid ah waxa ay leeyahay Soomaaliya oo hal ah ayaan rajaynaynaa insha Allah taala midnimada hawarto inta jecel waa jecelnahay inta nacabna waa jecelnahay